صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو ترتمي وتا كوحو صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي مقع قرنكي كبان وحي كوريان ياروه كسكي عقلي يجركو وحي كميان بلشدا وحي كميان بلشدا مقع قرنكي كبان وحي كوريان ياروه كسكي عقلي يجركو وحي كميان بلشدا وحي كميان بلشدا حناقته وكديد intaan ciyaartoon guud galna waliba fada intaan bilaawa Ramadaan ka saan bilaawada iyo silahan dhilay bil Ramadaan bilaawje waliba bilaawday ama maalin isniinka ka baagnaayt waliba bilaawday tartanka soo Ramadaan ka baydhaba oo lan qabday ilaa iyo 24 kooxood oo baydhabo ku tirsan heerka kuwaad heerka lamaad ilaa heerka saddexaad waliba dheeloba inka dambeyn waliba la maray heerka semifinalka oo afar kooxood iskirti shalay kulanka dambeey waliba dhamaray lamada kooxood Amaana iyo kooxda Banooni lugtay Shimiteri ciyaarta City afar ilaa miya ka badiyay kooxda Amaana oo gudubtay wareegiga semifinalka taasaytuna waliba muujas in kooxda Banooni lugtay Amaana iyo saaska City meeliya hig sidaasi waliba iskirina kooxo FC Sheikh Asharo FC Baydawa FC Suqola iyo FC Amaana oo heerka kuwaad dhamaantood ku wada dheelayaan hadii la yiraahdo kunid maalinta qamiistay in la raajay geeka guddiga waliba saaran isku eedka tartanka waliba iska eedana kooxo suuq hoola iyo Amaana oo nagdi kulankan ka adag ee Ramadaan kaab oo la filo in maalinta Jimcaada ee Baydhabo dhamara isaasoo kale kulanka kale FC Baydhabo iyo kooxda Banooni lugtay FC Sheikh Asharo qamiista Baydhabo garoonka kan ka dhigi doona guddiga xiriirka Banooni lugtay degmada Baydhabo oo kuma hanagaan qaabka feelayo wala wadana isaasoo kale guddiga xiriirka Banooni lugtay koonfur galbeed waliba la raajay Faisal Kureed markii tartanka kan Ramadaan kaab isu dhamaada in Baydhabo soo ku bilaawdo tartanka soo SSL kaasayto laan gaabi soo West Super League oo SSL lanka soo Baydhabo hore waliba ku dhigi jiray tartan leero BSL oo Baydhabo Super League ay hadda waliba ku gudbiyay SSL oo soo West Super League lanka soo waliba dheelo doona ilaa iyo afar bilood soo qorsheeya oo waliba dheelo doona ilaa iyo 8 kooxood oo lanka talagalay in lama kooxood heerka lamadan gudubta oo li kooxood sanadii faham bata litaas kooxood oo heerka Banooni lugtay Soomaaliya diiwaan geli doonaan iyo ina kooxo heerka koowaad ee koonfur galbeed Soomaaliya diin ayra lagu nagada litaas kooxood oo heli doonaan xuquuq wala ka talagalay si gudoomiyaha heerka Banooni lugtay koonfur galbeed Axmed Ali Xasan ima dollar sooray baan sheegay tumi afar wareegayna dhili doona tartanka kaas oo maalin arba ka beegan oo arbaadiya ka beegan diin ayra lagu nagada tartanka soo bilaawdo doona oo tumi afar wareega sideedkaas kooxda iska arga doonaan waliba kureed bilaawdo doona ciyaarooga Zerebida iyo ciyaarooga Zeresida soo toosan bilaawdo doonaan oo garoonka kan Dr. Stadium Baydhabo la ka dhili doona garoonka kan oo dhismidiisa hadda si aragtanba bilooyinka dambeeyay dhismo fayl oo sahalay waliba la rajeeyahay in la dhisa hab casri ah oo garoomada adduunyada oo kala ilaa bil November ee waliba la rajeeyay in la dhisa hab hawaysan oo hatta roog la dhiga hadii la yiraahdo kunagadiina la rajeeyahay waliba nataasaytii muujasay in dhalinyarada reer Baydhabo iyo dhalinyarada reer koonfur galbeed ee Soomaaliya meel fayl oo sports show ka bandhig koran leela garoonku hadda waliba ka dheelahay ciyaaryahanada fara badan oo kulanku dhalinyarada ama odayaalka isku kooyeen waliba weeliyaha dhalinyarada suubiin dhankaas oo ku midaya Aadam Macalin Siidkay oo laacibka South West ba oo rekorna mahad warsame Fatale MK iyo dhamaan ciyaaryahanada oo zareeda ku dheelayaan weeliyaha odayaalka oo isku midaya
dadka dheelahayaan agaasimaha warbaahinta dowladda koonfur galbeed ee KJS TV Mar Mustafa Nuur iyo saasoo kale gudoomiyaha xiriirka Benelulte degmada Baydhabo Madkeer Isbiida xukuumadda iyo dad eedan fara badan oo haddana fiir xukuumadda iyay oo hore in ku tirsanaaday jaray bahda sportiska oo FC suuqa hola FC Baydhabo kooxda xukuumadda Ndeli gudoomiyaha kooxda FC Sheekh Sharaf Xuseenaatiya saasoo kale ka jara وهيفو كجرا وعبد الله عقي أو كترسن حلقة كونفور قلبيت أساسا كله كجرا جرانكا ولي بروجي أصحاب بدن سكوميديا قدومي هوري هرير كبنولو كونفور قلبيت الصومالية يا أساسا كله فري و عبد القادر شريف حرو ياساس أكل جران كفدي يا أصحاب إيدان فرب بدن ولا برجان أصحاب تينيون للدرجة دونان ترتن كأم عصركن يارتساسنا كنا ما تيدا ما سنتين عبد الكريم محمد نور أبصر بوشلها ولا با ساسو كلا قبني لك باقشدون جيجا جران كبوغني صاحب كسليمان علي عبودي يفصل لا حسين مكمرنا اسمها تي في كونفور قلبت وسين فضاي أرنتن قلبتون إيدا ما سنتين برامج كلامد أنتن كل من نبدانا saadi bargaayta inta waliba garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo suni bogsuna waliba ku dareeray Ramadan kaabka oo longoobada guud ahaanba kooxaha ku dheelay magaalada Baydhabo iyo markaas kooxo hata isla maraysa ma finalka oo kaliya iyo dhimin ilaa iyo afar kooxood hata kulankan waliba dhaxay qaar kumid ah legendada ama ba ciyaaryahanadii hore laacibiinta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya sida weyn lagu kasay iyo waliba qaar kumid ah laacibiinta hata iyo dheelayaan siyo markaas iyo nisbaradan run ahaantii waliba kulankan isdhaxgal oo markaas iska baradaan dadkii hore legendadii han wada dheelan salaam waliba soo caalamka markii la nagad waliba jarana qaar kumid ah tababarayaalkeena banooniga dheelayaan qaar kumid ah legendadii horeeyeen wada dheelayaan saata kulankii miin hore dhiyay oo dhaxmaray ku haa baarmuno waliba Manchester United oo tababar Ole Gunnar Solskjaer hata gool dhali marka kulamada City kulamadaas iyana kumidaya hata waliba iyo wada dheelayaan qaar kumid ah dadkii hore oo eedka langasay dhiniga sportiska deegaanada koonfur galbeed waliba qaar kumid ah xidigaha hata saanka an ka shidanta deegaanada Titio marka kulankan iyana markaas ujeedadiisa iyo tasriyo markaas isdhaxgal bulsho iyo lanka sameey lahay waana Ramadaanka tumankiisheenka dambuununa ku guda jarna waqtigiyoon ka dhamaysay lahan bulshada galbeed aan ka kaxayn iyo la guda jaray bil Ramadaan tumankiinka dambeey iyo caalamiin daahayaan in sheegada siyo annaga dad yar amal ay iska dhikahayaan oo ka soo naatay san argay tan garoonka meelno Dr. Stadium galabnimadan geeke ya iyaaran xiisa badan haka bandhigeen garoonku iyana socda horyaalkii sheegada bil Ramadaan la qabado jari oo kooxooyin adag oo ku dhisay magaalada Baydhabo sama finalkaas diirada doonaan sida rajayahay oo kumid ah kooxda Almaan iyo suuqdo hore oo iska balansan oo kooxdan ka caansan kooxooyinka ka hadlahay kumid ah gudaha magaalada Baydhabo la ka hadlahay iyo la guda jaray bil Ramadaan koobkii la qabado kaasoo isla marhaantaasi ku turjumo nabadii isdhaxgalka bulshada oo la qabado kooxooyinka ku dhisan gudaha magaalada Baydhabo garoonku isin argaytan way bal ka soo beeday dayactir eeda u weyn samaxado jarna dawladda koonfur galbeed Soomaaliya dayactirkaas ay suurtageliyay iyo isla marhaantaas ay wasaaradda dhalinyarada ciyaarada dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ka duulahayd sidii garoonku soo beelahay ama garoomada caalamiga ama la ka dhisalay naqshadiis dhawaan la bandhigay garoonku in garoomada caalamiga dalka Soomaaliya kaalan ama garoomada caalamiga jaan qaada lahay la ka dhisadona darbiga la wareejiyay guud ahaan garoonka Seversingu si qaybtii kanasada lahayn kooxooyinka qaybtii oo sheegada la ku waarday lahay garoonka la suubi maxaada janasiriga ka wareegsan garoonka guud ahaan badii Sever guud isin ku argaytan dadka qaar hata madaxda isku kooyso boonisku ku ciyaaraysa waa garoon caalami oo la jaan qaado doona nagadi muddooyinka sanadka 2020 ka baraja in garoonku uu nagada garoon oo siyaala oo horyaalada dalka isla marhaantaas ciyaar maamul goboleedada gobolka doona sida kala jaweeniyo
horyaalada ee sheegada guud ahaan dalkana Soomaaliya ciyaartooy ku qabsay magaalada Muqdisho laakiin rajayahay in maamul goboleedka gobolada Baydhabo iyo qayb kuna go'do sanadka hadda dareera meel gobolada hadii Ilaahay awood la gadar argahaytan ciyaartooy socotay oo ku jirbi Ramadaan waqtiga iyo ay ku faa'iideysadaan dadka daada weyn iyo dhalinyarada oo isla marhaantaas ciyaar xiiso badan oo banaska jirana ganacsato iyo sheegada horay kooxooyinka hanka ciyaaray oo door weyn qaaday dib u dhiska dalkan iyo sidii dhalinyarada la dhiirigelin lahaay sidii kubadda cagta iyo isdhexgalka bulshada iyo door muhiim ah qaadan lahaayeen keeki ciyaarweyn inta ka bandhigay si baragahaytan xanaaqadu waa kadeed ciyaar xumo koobsato waxdii ayr laga badshaa adoon kicinay buuq wadada kalwiyo huleel wadada kalwiyo huleel bismillaah magacay wali boos Suleymaan Ali Cabud hagudbiyowka xaqiiqooyinka xoogta ku dahson welwel badan ku baahan tantiyo laakiin gudbina dhinigii wali sportiska BSL-ka magaalada Baydhabo wali bay ta shaqada tiidana marwel wali baan teeganaantiyo naasin gudbina wararka ku saabsan hadii anaga ta wararka caalamka hadii anaga ta wararka gudaha ay wali xaqiiqooyinka shaqaduna inta wali baa garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo saadan la socdo wararka sportiska fadlan subscribe sar channelka Suleymaan Qarni TV ma sanadeen wata kubad lagu tartamay wata kooxu safteen wata kub lagu hardamay wata kub lagu hardamay صفتين وتا كوب لغو هردمي وتا كوب لغو هردمي مقع قرنكي كبان وحي كوريان عياروه كسكي عقلي يجركو وحي كلميان bulshada waxay kulmiyaan bulshada magaca qarankay kabaan waxay koriyaan ciyaaruhu kaskiya caqliga iyo jirku waxay kulmiyaan bulshada waxay kulmiyaan bulshada